iyadoo ay maanta xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland ay si cod aqlabiyada ku ansixiyeen xeerkani ku saabsan sidii lacago dheer ee loogu kordhin lahaa gaadiidka iyo xoolaha nool oo baarlamaanka soo hordhigay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaana xeerkani ka biyadiiday qaar kamid ah xildhibaanada mucaaradka ee Soomaaliland taasoo gaadhay faraka hadal ka dhacay gudaha baarlamaanka TV-ga Somsa TV oo maanta booqday saylada xoolaha ee magaalada Burco ayaa waxaanu u kurgalay xaalka xoolaha iyo sida ay arkaan bulshada goobtaasi cashuurahani dheeriga ee lagu kordhiyay iyaga iyo gaadiidka iyagoo qaarkood xukuumadda ugu baaqay in lacagahaasi si cad wax ugu qabato bulshada isla markaasina ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii balse ay ogol yihiin inay cashuurahani bixiyaan haddii ay ku socoto dariiqo wanaagsan sida ay dadkaasi hadalkooda u dhigeen sidoo kale iyana waxa aanu la kulanay kuwa ka cabanaya xukuumadda oo tilmaamay inaan wax qabado oo loogu qabtay aanay jirin kana soo horjeedaan cashuurahani la bixinayo iyaga oo sheegay inay saylada xoolaha nool ee Burco ay dayacan tahay sida ay hadalkooda u dhigeen dadkani ka soo horjeeda cashuuraha dheeriga ah ee lagu kordhiyay waxa weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin horta marka hore bala ma jirto dhibaato ma jirto ilaahay mahadi weeye dadku dhib bay iska sheegtay waxa weeye dhimo jirto ilaahay mahadi weeye mar haddii la nool yahay boqolkiiba boqol la nool yahay nabadgelyo la haysto waxa weeye boqolkiiba boqol ilaahay nabadgelyana noo siiyay waxaan ku codsanaynaa dowladda Soomaaliland xoolihii cashuurtoodii tuulooyinkii shan filis baa lagu qaadaya Burco markay yimaadeen shan filis ka lagu tiraya iyagoo Itoobiya iyo Kootarabaan badan iyo dhib badan soo mara haddana waxa weeye xoolihii waxay cashuurtoodii waxay qaadi karaan jubaa ku gaadheerahay seela joog baan hay ilaa afreeskeedkii seeladan horta xooluhu marka hore marka lacagtu qaalgaruuda cashuurta waa korona cashuurtana dawladda shacabka iyo shaqaalaha iyo militariga iyo cid walba waa meeshan wax ka qaadanaa beero kale ma lihin waxaan leenahay 5 baan ku maraya shan cashuur oo qaadi kara shan filis cashuur oo qaadi kara waxaan leeyahay cashuurta la daayo haloo hagaansanaado dariiqadii baa la sameeyaa jaamacadii baa la qorayaa wadooyinkii baa la sameeyaa caato wala jilaarin jooga xoolaha iibiyay xoolaha ugu badan baan ugu keenna waxaan ku codsanaynaa Somaliland iyo aad u mahadsan ayaan waxaan ku codsanaynaa inay halka cashuurta wax naga qabto inta kale waa okay way nabadgelyo maxamed soo jaamac waxaan ka mid ahay dadka xoolaha iibiya loo yaqaan dilaalinta waxaan ku leeyahay xoolaha waxyaabo fara badan xoolaha haysta xoolaha waxyaabo fara badan ba haysta oo taraagaya oo haraad leh oo shilin leh oo dulin leh cashuurtina wana lagu kordhiyay waxa la xitaa waqtiga wana laga qaadi laayay wadankaasi neefkaasi ku socda neefkana haddii la xaro ma suura gelayso si kastaba ha ahaatee cashuurahani dheeriga ee lagu kordhiyay gaadiidka iyo waliba xoolaha nool ayaa wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan uu tilmaamay in lagu dhisi doono bilicda isla markaasina kor loogu soo qaadi doono quruxda iyo habsami u socodka wadooyinka waaweyn ee Soomaaliland ay ugu horeysay wadooyinka isku xidha magaalooyinka Burco iyo Ceerigaabo oo muddo badan ay ka dhul sugayeen bulshada deegaankaasi Ceerigaabo oo Axmed Hanad Guray Baqaye Somsa TV gobolka Togdheer.